magaalada muqdisho waxaa si weyn looga ciiday ciidul fitriga guud ahaan looga dareemayaa farxadda ciidul fitriga oo ah maalintii koobaad waxaana dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si weyn maanta ugu damaashaadeen farxadda ciidul fitriga oo ah maalintii koobaad damaashaadka farxadda ciida oo ay maanta u dabaaldegayeen ummadda muslimiinta ayaa magaalada Muqdisho si weyn looga dareemay farxadda ciida wadooyinka waaweyn iyo isgoysyada ayaa si weyn maanta mashquul aad u tiro badan looga dareemay waxaana wadooyinka lagu xardhay boorar ay ku qornaayeen hambaliyada ciida iyo nolol aad u qurux badan oo muujinaya bilicda magaalada Muqdisho inay ka duwan tahay ciidihii hore caruur iyo dad waaweyn oo xirnaa libis aad u qurux badan ayaa ku damaashaadayay farxadda ciida haddaba si aan uga qayb galno farxadda ciida ayaa waxaa mikrofoonka Somali Channel la dhex qaadnay dadweynaha ka qayb qaadanaya damaashaadka iyo aragtidooda ciida ay maanta u dabaaldegayaan kullay maanta maalintii ugu horeysay aan la kulmo ciid Muqdisho ka dhacaysa runtii maanta waxaan shucuurteeda ku matalayaa inaan aad u faraxsanahay lana qaadanayo ciida bulshooyinka magaalada Muqdisho ku nool nabadna ay ku wada ciidayaan dhamaantood daafaha magaalada oo dhan waxaan Ilaahay uga baryaa in nabadda sanadkaas sanadkiisa nabad sidaa ka sii wanaagsan iyo Muqdisho muuqaalkii lagu yaqaan oo soo noqday insha Allah bidmillaahi kariim shacabka Soomaaliyeed oo maanta hal maalin wada ciiday hal maalin wada soomay oo dawladooda iyo dalkooda iyo dadkooda aad u wada faraxsan telefishanka oo duubaya oo dadkeenu soo dhaweeyay jecel shacabkiisu shaqeynayna waxa leenahay guuleysta insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo aad baan u faraxsanahay ciidahan ciidii hore way ka duwan tahay aadna u faraxsanahay waad arkaysaa ilmaha inaan u iibiyo waxa la yiraahdaa bombolooyin qurux badan aad u jecel yihiin marka ciidan waa ciid maaragtay aad u farxad badan ciidii hore ka duwan tahay aad iyo aad ciidan waa ciid farxad badan waxaanu dhisanaynaa dawlad waxaan noo soo baxay barlamaan waxa weeye wax walba everything is okay ciidii hore ka duwan tahay aad iyo aad markii ugu horeysa waxa leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta meel ay joogaan kullu caam wa antum bikhair runtii aad baan u faraxsanahay maanta bisha barakeysan ee rabaa inaan ku iido caasimadda Soomaaliya Muqdisho runtii markii ugu horeysay waayaan caasimadda Muqdisho aan ku iido runtiina waxaan ku arkay jawi aad u macaan mataqaan u degan marka waxa leeyahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan kullu caam wa antum bikhair gaar ahaan shacabka reer Muqdisho waxaan u rajeynayaa in ciidan ciideeda kale ay ku gaaraan farxad iyo barwaaqo magacayga Maryam ayaa saaka waa ciiday saaka ciid wanaagsan ayaa ka waran farxadda ciida okay farxadda ciida ilaa intee tagtay saaka ana ilaa meelahaas xaga tagnaay ay magaalada inta socotay bal ka war farxadda ciida iyo farxadda ciid aad bay fiican tahay caruurtana aad bay quruxdiin ma sha Allah ilaa dhaafo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa saaka si weyn loogu ciiday farxadda ciidul fitriga oo ah maalintii koobaad iyadoona dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ay saaka si isku wada mid ay u ciideen hayeeshee waxaa jira dad barakacyaal oo ku nool magaalada Muqdisho kuwaas oo aan ka qayb qaadan farxadda ciidul fitriga waryaheena Cabduqaadir Cali Xuseen Koronto ayaa ku sugan xirada badbaado oo ay ku nool yihiin kumanaan barakacyaal aad baad u mahadsan tahay Xamdi Maxamed Xasan iminka waxaan ku suganahay kaamka badbaado oo ay ku dhaqan yihiin kumanaan qoys oo barakacyaal ah kaamkani badbaado oo kamid ah kaamamka waaweyn ee ay ku nool yihiin kumanaanka qoys ee barakacyaasha oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku tabaaleysnaa gudaha kaamkaasi ayaanay ka qayb qaadan farxadda maalinta ciidul fitriga qoysaskani barakacyaasha oo la daalaadhacayay nolol maalmeedka ayaa waxay caruurtooda u awoodi waayeen dharka ciida si ay farxadda ula qaybsadaan caruurta Soomaaliyeed waxaana gudaha kaamka badbaado kula kulannay caruur aan haysan wax labisa oo ay ku ciidaan marka laga reebo inay niyadda ku dhistaan buufinka ay caruurta ku cayaarto dar la'aan iiweyn daraalina ayay ciida wada macna ayay dam ka go'an ka dam qadna hadna dar go'an way wala falan dar la'aan way qowl aan guriyana xagaasa qaar kamida waalidiinta oo aanu mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa waxay Somali Channel u sheegeen inay iska badaayay ciida aysan awoodin waxyaabaha asaas ku ah nolol maalmeedka kaamka badbaado horta deegaanka dhulkaas ku deganaa biyo haysana walkale dad oo haysana meel dhibaato rafaad leek nool oo nafta siinka badbaado ay to Ilaahay dhulka bisiinka bariisayna wadi fiicanka bariisayna lana
والكلام هذا هاي سنة ملا ربي باهو نون الدراسة غير هذا نو دبالة ننشاني أنت كلام هاي سنة ملا لعك هاي سنة هم جرم هاي سنة والكلام هاي سنة ملا والبين هاي نون هاي سنة مرة رجعوا ولا عدن درارنا أنتن درارنا يال كاني هون درانتنا إن لا أقلعهم جرو لا عن هاي تساس حال كني حالة بركة عياش أو مش كسرون هرت الصف أنا ميد المانتا يديه اللي جري يديه هره يكون هذا maarta iyo wax istaaman male iidan hata waxa ka daran dadku waxay soo galayaan male lacag ma soo galayso raashin ma soo galayo maarta aad xaaladooda yaa u xuntahay dar iida talinku halin mugob afarinaga dhali afarta badaraanti oo kobo mugoban karku mugoban an saasaha waa kun wari jalmad shaaya dabkaan may saarna hadu irsaaqan saaraan male lebadani fiantaanu dhiigan ilaahay ka bariisi shaqo mahalna walon hayna male intaas kuroon الحمد لله إلهي ما حدش ولا إلهي نبدي في عنا نسيم أرادي ولا دتي سيد أنتونا نوصل شكرا لله أنا هايت ما بين بدير تطلع حتى إنجيل كوفي ولا قال ضواي أما مسار ضواي ما قال لا شقة هاي مله سام قال كل إدين في الفوق بلا جابه بجراس جابه بيدي مسؤول يبي مكفلين ها إلهي ما حد تقول هايت يدا ونك يدويني ياك كي يجرنا هذا وبار مالنكاتنا kumanaanka qoys ee barakacayaasha ah ee ku dhibaataysan gudaha magaalada